munaasabadan lagu caleemasaaraya gudoomiyaha cusub ee degmada Afbarwaaqo Cabdullaahi Jaamac Dhoore ayaa waxaa ka soo qaybgalay qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka, siyaasiyiin, indheergarad, haween, dhalinyaro, mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug oo ay ka mid yihiin madaxda gobolka Mudug, wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Xayir Nuur, madaxweynihii hore ee Galmudug Maxamed Axmed Caalin, gudoonka haweenka gobolka Mudug. ugu horeyntii ayaa waxaa daafuro munaasabada gudoomiyaha gobolka Mudug Cabsid Xaashi Cartan. waxaa dhanka kale ka hadlay munaasabada wasiirka arrimaha gudaha Galmudug Maxamed Xayir Nuur. sidoo kale munaasabada waxaa ka hadlay mas'uuliyiin iyo marjaraf ka tirsan bulshada deegaanka. waxaad aragteen meesha keensaday oo maanta la isugu yimid wax nooc kasta oo ay tahay ururkaas magaciisa anigoo ku hadlaya aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa shacabka kala bedelan oo ka soo qayb galay meesha sama jecel waa Afbarwaaqo oo wax ka soo qabtay oo deegaanka soo adeegay hadday guryo ay dhiseen tahay hadday tahay waxqabadka hadday tahay gobasha guryadooda taalo dadkii u soo bandhigay oo u dhintay oo u hormuudka ahaa Cabdullaahi Yuusuf Allahu naxariisto iyo Cabdirasaaq Cabdulle Cabdirasaaq Aliyey maasha Allah waan leeyahay. iyo shacabkeedaba ayagoo isku duuban inay midba maalin boorka ka jafaan sida maanta ay loogu soo gudmaday Afbarwaaqo. ugu dambeyntii gudoomiyaha cusub ee degmada Afbarwaaqo ee lagu caleemasaarey munaasabada ayaa waxa uu xilka kala wareegay gudoomiyihii hore ee degmada Afbarwaaqo Maxamed Xasan. حسن عبد الرحمن آدن حسن فانتاستيك تلفزيون كعالمي كلسن مقالة القالكاي.